dugsiga hoose dhexe ee Ubaya bin Kacab qaybtiisa bariga Boorama ayaa maanta shahaadooyin guddoonsiiyay ardayda kaalmaha koowaad ka gashay imtixaankii dugsigaasi ee sanad dugsiyeedkii 2022 madasha ardaydan lagu maamuusay oo ay ka soo qayb galeen maamulka dugsiga macallimiin waalidiin iyo daneeyayaasha waxbarashada ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka warbixiyay ujeedooyinka madashaasi maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Ubaya bin Kacab mudane Axmed Saleebaan waxaana uu ku dheeraaday marxaladii kala duwanaa ee uu dugsigan soo maray xafladatan ujeedadeenu waxay ahayd tobanka arday ee ugu sareeya ardayda dugsiga dhexe iyo tobanka arday ee ugu sareeya dugsiga hoose talabaad waa dhiirigelin ardayda dhexdeeda si aynu u ogaano ardayda wax si fiican u akhriyaysa ee noqonaysa kuwa dadaalaya ogaanshaha aynu ogaanayno kuwa inoogu sareeya ee wax akhriya waayo sirta waxbarashadu waxa weeyaan waa wax akhris weey qodobka saddexaad tartankan hadda inoo hor yaala ee tobanka arday u sareeya ay labada qayboodba ka soo baxeen intermediate-ka iyo elementary-ga ay ka soo baxeen waxaynu arkaynaa inaanu joogto noqonaynin arinta ogaada sababtu maxay tahay ardayga maanta laga badiyaa bari muxuu samaynayaa barina uu dadaali samaa ardaygii ka soo badiyay maanta ka badiyay waa inuu bari ka badiyo weey waxa intaa dheer tirada ardayda ee hadda meesha inoo fadhida guud ahaan haddaan waalidiinta iyo dadkayna dhegaysanayaba u sheegno waxa weeyaan 654 arday weey 310 arday waa gabdho weey gelinka dambe ayay yimaadaan waxayna isugu jiraan dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose ayay isugu jiraan 344 waa wiilal tira ahaan wax yar bay isdheer yihiin waxa ardayda guud ahaan aan ku sheegnay 654 arday waxa dhaafid ah 120 arday bal u fiirsada halkaas bilaash bay ku dhigtaan ardaydaas labada gelinba ogow ardaydaas labada gelin ku dhiganaysa arday bilaashka ee sidaas ku dhiganaysa waxay isugu jiraan arday faqiir ah oo waalidkoodii lacag ka bixin kari waayeen iyo arday free ah oo waliba ay badan yihiin ardayda faqiirka ah ee waalidkoodii lacag ka bixin waayeen ogaada ardaydaas waana arday aan u naxariisanay oo aan doonano inay wax soo bartaan waxa weeyaan haddii la xisaabiyo ardaydaas lacagta iskuulka uga soo xiroon lahayd waa lacag macallimiinta ku filan lahayd waa lacag iskuulka dhisi lahayd waa lacag iskuulla secondary maanta aan ku dhisan kari lahayn weey marka taasi waa ta keentay inaan u naxariirsano bulshadayada inaan u naxariirsano bulshadii aanu ka nimidnay bulshadaanu ku dhex nool lahay bulshadaanu ka tirsanahay haddaanu wax ku darsan weynana dee waxa weeyaan annaga cidla ka wareera ogaada markaa waxbarashadu waa isku dhis ka kooban weeyi waalidka macallinka iyo ardayga ayay ka kooban tahay taas oo keensanaysa cooperationkaasi inuu dhalo arday aqoon leh oo tartamaya oo bulshadiisa magac dhexdeeda ku leh iskuuladana ka soo hoynaya war ma isfahanay wari arday si fiican waalidkiina ma isfahanay dhegaysa hadaba waxa weeyaan arintaasi waa arin muhiim ah waa arin laga maarmaan ah waa arin u baahan inaynu maskax u yeelano inaynu ku tartano inuu magac ku yeelano iskuulada iyo magaalada iyo dawladda aynu ku dhaxnoolay insha Allah taala Soomaaliland inaynu noqono tobanka ugu sareeya magaalada ama dawladeena Soomaaliland ba tobanka arday ugu sareeya waa inaynu qayb ku yeelano insha Allah taala sidaas oo kale ayaa qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda madashan goobjooga ka ah hadalka iska daba qaatay ee halkaasi ka soo jeediyeen hadallo dhiirigelin badan gabayo iyo nasiidooyin kale oo ay ugu tala galeen xafladaasi waxaynu
isugu nimi maanta waxa weeye xaflad lagu maamuusayo ardayda tobtanka ku jirta iskuulka iyadoon loo kala saaraynin inamiya hablo laakiin loo kala saaray dugsi dhexe iyo dugsi hoose xafladan oo maamuuskeeda ay soo qabanqaabiyeen maamulka dugsiga iyo macallimiinta marka waxa loo baahan yahay ardayda markaas intu diineed iyo maadiba ay bartaan ilaahay agtiisana kuwaas qiimo kule markaas adduunyadana markaas kuwaas ayaa qiimo kule marka walaalayaal ilaahayna cilmiga waa amaanayo xiri walaal yastawi alladina ya'lamuun walladina la ya'lamuun miyay simayeen kuwa aqoonta leh iyo kuwa aan aqoonta lahayn ma sinay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa maanta halkan aynu u taaganahay in abaalmarintii la bixiyo teeramkaasi hore ee 4 bilood aynu soo dhiganaynay rag badan ayaa soo dadaalay oo guula ka soo gaadhay oo halkan laga sheegi doonaa in badanina halkan bay ku ciyaari jirtay oo maalintii ay iskuulka siigada iyo boorka ay ku qasi jireen maanta haddaba waxaa loo fadhiyaa raggii dadaali jiray iyo raggii ciyaari jiray ayaa maanta la kala saaraya rag badanna waxaa la doonayaa in ay iyaguna ku daydaan teeramka inta hadhay oo ay heerkaas oo kale soo gaadhaan قيان فيرد هذا ويرد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام رواه البخاري ومسلم الشرح الإجمال الحديث يقرر الهوى قفك عذورك بكويسي إلهي درتي وسامح قلوبتا كسارة دونكا مرونكو قولي بيا دونكا إفكانا خيرو سي شقايسو قفشا لغو مير مراي نفتنا لغو هورا مرشاي هدانا لهين جيدو قفشا ادكو قرحسو نفتادا مردادا وغا عادين درتا هدانا لهين هانساري وديدن وحيو كديدا ودالين درتا ودولين بالمحاد حيوان كدانتا يا بدر أنا أهلا وسهلا يا حسن كيف الجو في لندن؟ الجو بارد في لندن هذا فصل الشتاء كم درجة الحرارة في لندن؟ تحت الصفر كركيس ورحمن ورحيم مدير كان أحمد الله طاف كركيس ورحمن ورحيم مدير كان ugu dambeyn ayaa madashan waxa soo afmeeray kormeeraha dugsiyada Ubay bin Ka'b Sheekh Cabdiraxmaan Muuse Tubeec waxana uu hoosta ka xariiqay qaybta fardaha hadalkayga waxa ku horeysiinaya taariikh yar oo kooban oo hal daqiiqo ah dugsiyada Ubay bin Ka'b waxay soo jireen muddo dheer waxa la aasaasay 1992 maantana waxa la marayaa 2022 waa muddo 30 sanadood ah kuladani waxay u taageen ujeedada ugu weyn loo aasaasay waxay ahayd tarbiyada carruurta yaryar in lagu tarbiyadeeyo diinta islaamka وأوتي إسكولك وحوليه أو الله راعي منهج تربية وعرض الحفظين السيرة النبي الله قبل أبيه كتابك اللي يقانو نور اليقين سيدا أوجه إسكولك وجدده ويني وأخلاق الإسلام لما أنتي واحد يقدر آخر إريدا waxaan doonayaa inaan guulaysto waxaan doonayaa inaan ixtiraamo macallinkayga iyo waalidkayga أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له